munaasabadda ciidul fidriga ayaa maanta looga dareeray magaalada Berbera waxaana kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Berbera isugu yimaadeen garoonka Bursade waxaana shacabkaasi tukashada salaada ciidul fidriga kala soo qayb galay maamulka degmada Berbera iyo gobolka Saaxil taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxaana markii tukashada salaadaasi ay soo ilaatay shacabka magaalada Berbera la hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo barasaabka gobolka Saaxil waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo acmaashii aynu bisha Ramadaan Ilaahay ku baryaynay subxaanahu wa ta'aala qodobka labaad ee aan doonayo inaan bulshada la wadaago waxa weeye marka soddonka bisha Ramadaan ay dhamaadaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka caloosha wax isugu haya lama rafciyo acmaashooda sare looma qaado marka qof kasta oo walaalkaad caloosha ku hayso iska sii daa waxba ku tari maayee dhammaantiin hal is wada cafiyo annagu haddaan madaxdiin nahay waanu cafinay qof kasta oo muwaadina oo khalad iyo saxba nagu maaga waxaanu leenahay cafis baa naga tahay adigana ciid kale ha u danayna acmaashaada u daneeyo adigu saamax aduu haddaan saamaxdi kaagu sare u baxaya kiisaa la haynaya marka waxaan leenahay dadka reer Berbera hay si saamaxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka muslimiinta inta caloosha wax isugu hayaan acmaashooda ma aqbalo dhammaan dadweynaha reer Berbera waxaan doonayay salaanta ciidda ka bacdi inaan raaciyo in yar laba qodob oo kaliya ta koowaad waxa weeye dhinaca amniga waxaan doonayaa inaynu ilaahay waxa weeyaan amnigu ina siiyey amniguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha uu ilaahay ummaddiisa ku galadaystay ee uu siiyey amniga waxaan doonayaa inaynu adkaysanno oo aynu iska kaashanno oo aynu had iyo jeer wixii ummaddu garan weydo ay laamaha amniga had iyo jeer la xidhiidhaan wixii ay garan waayaan soo sheegaan qof kastaaba guriga ku xiga waa inuu ka warhayo xaaladda uu ku nool yahay iyo sida ay wax u jiraan haddaynu saa isugu xidhnaanno oynu amnigeenna sidaa isku adkaanno horumarkeennuna wuu sii kordhayaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu abaaraha weli meelo badan baanu roobku helina uu naga soo jebiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu soonkii iyo salaaddii iyo cibaadadii oo dhan naga aqbalo waxaana gebagabadii halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Somaliland Cabdinaasir Cumar Yare ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu sidii gudoomiyaha gobolkuba ku duceeyey inuu inoo aqbalo acmaashii iyo khayrkii fara badnaa ee aynu ku soo jirnay bishii Ramadaan waxaan jeclahay halkan inaan hambalyo ballaaran uga gudbiyo madaxweynaha qaranka gudoomiyayaasha labada gole madaxda ciidamada qaranka oo la'aantood aynaan halkan nabadgelyo iyo caafimaad aynaan halkan ku ciidneen waxaanu leenahay iyaga iyo awlaaddoodii xaasaskoodaba ciid mubaarak hadalkii waa la dhameeyey waxaan farxadii ah oo aan halkan idinka soo gudbinayaa salaantii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo aan leeyahay madaxweynihii qaranka Jamhuuriyadda Somaliland xubnookiisii oo dhibay salaan iyo bashbash iyo barwaaqo inaad ku ciidaan aad iyo aad baad mahadsantihiin Gamto Ismail Ali Ariel TV Berbera